xaaladda magaalada Buuhoodle iyo deegaanada ku hareeraysan ayaa degan oo maalmahan ay ka dhacayeen dilal dhinaca kale Caaqil Cali Cabdi Cali oo kamid ah xubnaha golaha cuqaasha ee Buuhoodle ayaa iska casilay xilkii caaqilnimo oo hayay beel kamid ah beelaha degan magaalada Buuhoodle sidoo kale waxa uu tacsiid tiraya la u diray guud ahaan dadkii ku dhintay dilalkii maalmahan ka dhacay Buuhoodle iyo deegaano hoos yimaada waana kan isagoo amuurahan ka hadlaya iyo waliba sababta uu isu casilay caaqilku على دكتور ما أنت أنا أقول يا ري وصحافيات كأن كو خلنا يا ما أنت هالكلمة وحوي أنا وأح على عبد علي كل مقعدين أنا وأح على عبد علي كل مقعدين على الذهبلي وحن ما أنت هالكلمة صحافيات كو كأن كو قبتي ومعنيه سويهاي إن أن كتنا سلي سير رسمي أنا سجع سلي caaqilkii beesha reer Shawwe Cali Gari caaqilkaas oo aan muddo ku soo shaqeynayay inaan maanta ka tanaasulo oo si rasmi ah isaga casilo ayaa saxaafadeedkan u qabtay aad iyo aadna waad u mahadsantahay maatinka aad ii timi waxaan halkan si rasmi ah uga mahad celinayaa oo si runtii aad iyo aadna u bogaadinayaa cuqaashii beelweynta Cali Gari cuqaashii Axmed Garaad cuqaashii gobolka Cayn وقاشي اسمدي جود أهم بقولة SSC أيان سر رسمي هالكن يقوم هاد علينا يا سيدي وناكسني أيان أصور شغالني عادي عاد يقوم هاد سنتين ضمان بشوي أنت قولة صوتنا يعين دكتة وحن قلت هني ذيل يا أسناد ديس وحن سر رسمي وقام المقرة يا شخص كمل أهباش فهمت دي باش وكذا شو كمان بحكره إيران كمل هاي شخص كمل باش أيان هاي عيد كاست oo dan iga soo yeelataana waxay igu soo hagaagaysaa shakhsinimada aan ka ahay beesha assalaamu calaykum caaqil malays oran kara iyadoo ay ognahay in dhawaan magaalada Buuhoodle ardayga ka soo jeeda oo nin dhalinyaro ku dilay isla markaana gacantaas ku soo dhigtay haddana ninkii dhalinyaradaha isla beeshu ay la fakatay dil kalena shara u dhacay laba qof kala ay dhimatay malays oran kara waxyaabahaas u keenay caaqilka cadaadis oo aad xalka caaqilnimada iska cashay runtii waa maasanta cala doctorow waqti weyn ku jiray akhir saban ah oo fitnadiisu ay fara badan tahay oo wax cidii wanaagga iyo tasliixa ka shaqeynaysa ay Itaaliyar tahay oo dadka munkarka ka shaqeynaya ee isu bahaystay foolxumada ay xoog badan yihiin marka ma kullayba salaadaydu waxay qayb ka tahay culaysyo waaweyn oo iga yimid beesha dhexdeeda kuwaas oo aan xal iyo maare kale u waayay marka waxaan doortay dee shakhsiga haboon ama iga firfircoon wax qaban kara in shaqada ay u bedeshaan aniguna runtii muddana waa soo shaqeynayay waana ugu adkaatay shaqadaas duruufo badan oo ila xiriira iyo duruufo badan oo beesha iga yimi aan warka ku hayno markii ninka dhalinyarada la baxay jeelka adigu aad joogtay ama xabsiga aad ku soo xidhay marka hore maxaa ku soo gaadhay warbaa sheegay in dhaawac jirkaaga ka muuqdo nabarka ku dhacaan bal xaaladaada iyo si wax u dhacaan bal laga waran أنا مرتدى وأنا هذا وفعلا هو نبض قراءة عفنات يقول هذا هو وناكسي هي لكن كان لما رضى شخصيه مركب واحد لي أنا قد ذلك يجي واجب من أيام كقلت وعن سوق قبتي وحنقص واحد يصلي بوليسك إذا ما بدنا باش كتر سنة وإلى لنا يوم قعنت أنا كوهيني marka arintaasi wixii ay ku dambeysayna hadii waa laga wada dhigtay yahay faafahin uma baahna waxaan halkan si rasmi ah u tacsiyadeynaya dhimashada saddexda qof maraysa markii hore uu dhintay ninka uu dilay ninka beeshayada ah markii dambana laba nin oo ka dambeeyay isla beeshayada ay dhinteen dhammaan dadka dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariistii jannaha ka waraabiyo dad aan waxba galabsan oo wax lagu leeyahay jirin bay ahaayeen Soomaalidu waa taqaanaa had iyo jeer gashi baa lagu lahaa iyo godob baa lagu lahaa iyo fulaan baa lagu lahaa iyo waxba la yiraahdaa wax dadka lagu lahaa oo lagu soo marmarsoday ma jirin bilaa sabab bay ku dhinteen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen oo anagu aanu ka mid nahayna cawil iyo bedel khayr qaba Allah ka siiyo waxaana ugu baaqayaa dhammaan labada beelood ee dibku kala gaaray in ay qasaare maalin nabad waa la yaqaanaa colaadna waa la yaqaanaa
bahdeena ama reerkeena ama deegaankeenu waa u bisil yahay colaadu waxa ay tahay iyo nabadi waxa ay tahay waxaan ugu baaqayaa bilaayo maalinba meesha ay maraysaa lagu xakameeyaa markay midhka ahayd waxaan isku daynay inaanay midhkaa dhaafin oo aan xakamayno iminka oo 3 maraysana waxay u baahan tahay in halkaa lagu xakameeyo oo aanay dhaafin dadka suuqa ka shaqeeya iyo ganacsatada iyo aqoon-yahanka iyo qurba joogta iyo guuda joogta culimada diinta iyo cuqaasha iyo maxaa haytay nin garboodka iyo istimada inay arrinta gacanta ku qabtaan oo dhibkaas halka aanu dhaafin aniguna runtii inta aan ku sugnahay deegaanka dadaalkayga shakhsinimo ayaan ka geysanayaa. Assalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam. Daktar wararka freeshka caalamiga ee Soomaaliya news.